Social media wuxuu noqday qayb ka mid ah nolosheena maalinlaha ah. Waxa uu qaabeeyay aragtideeni, waayo aragnimadeeni, khibradeeni, dhaqdhaqaaqeeni iyo sidoo kale adduun arageeni. Waxa uu saameyn ku yeeshay hafakarkeeni oo uu naga siiyay aragtiyo kala duwan ashyaada ay nagu hareeraysan ee aynu aragno si maalinlaha. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa 7 qodob oo ay tahay in qof kasta ogaado ama uu isticmaalo si social media-hiisu uu noqdo mid saameyn leh. Magacaygu waa Sakariya Faysal Cagaf. Soo dhawaada saaxiibayaal. Qodobkeena koowaad waa inaad garato ama aad barato social media-ha aad isticmaalaysaa ka yahay. Tusaale ahaan, social media wuxuu leeyahay apps kala duwan sida Instagram, Twitter, LinkedIn iyo qaar kale oo badan. Mid kasta wuxuu leeyahay ujeedo iyo siyaasad loo sameeyay oo ay tahay in qof kasta ogaado. Marka aad doonayso markaasi inaad social media-haaga adeegsato, mar kasta garo social media-ha ujeedadiisa iyo waxa uu ku habboon yahay ka loo isticmaali karo. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad sawir soo dhigto, waa inaad isticmaashaa Instagram-kaaga ama Pinterest-kaaga. Haddii aad u baahan tahay in wax shaqo ku saabsan aad soo dhigto ama aad ka raadsato, waa inaad tagtaa social media-ha LinkedIn-ka oo ay isagu ujeedadiisuba tahay in loo isticmaalo ku naadinta shaqada iyo raadinteedaba. Qodobkeena labaad waa inaad garato akhristayaashaada, dhageystayaashaada ama daawadayaashaada. Qodobkan waxaan uga jeednaa social media kasta waxa uu leeyahay dad u gaar ah. Dadkaasi waa dadka aad wax la wadaagayso. Waa inaad garan kartaa dadka aad la wadaagayso social media app-ka ay isticmaalaan iyo mid kastaba ujeedada uu gudbinayo. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad u sheegto wax dad 60 jir ama 80 jir ah, waa in aanad isticmaalin Snapchat maadaama uu yahay app ay isticmaalaan dhalinyartu. Qof kasta fahan app-ka uu ku badan yahay ama joogo. Si taasi ay qayb uga noqoto in fariintaadu ay gaadho meel sare isla markaana ay u gaadho dadkii loogu talagalay ee aad doonayso markii horeba inay fariintaadan akhristaan. Qodobkeena saddexaad waa in aad is-ahaw. Markaan leeyahay qodobkan waxaan uga jeedaa waxaa jira dad shakhsiyadooda waxa ay sheegayaan iyo sida ay yihiin aanay islahayn. Qofku social media wuxuu ka sheegayaa fariin aanu ku dhaqmin ama aanu shakhsiyanba u samaysnayn, isagoo doonaya inuu ku raali geliyo dad kale oo social media dhinaca kale ka soo fadhiya, akhrisanaya, daawanaya ama waxa way dhageysanaya. Mar kasta ahaw naftaada, metel naftaada, u qor, u duub, isla markaana u sheeg sida aad adigu wax u fahansan tahay ama aad u taqaano arrinkaas. Mar kasta ahaw qof jooga, active. Qodobkan waxaan uga jeednaa maadaama oo tahay qof social media isticmaalaya, waa inaad ahaato qof joogto isticmaala social media oo aan bishii ama 2 bilood mar soo galin. Waa inaad noqotaa qof si maalinlaha wax u soo boosti gareeya. Waxa la sheegaa celcelis ahaan qofku inuu muhiim tahay inuu soo share gareeyo ama soo qoro ama soo dhigo maalintii 2 jeer si dad badan kugu xidhmaan. Qasab ma aha inaad mar kasta wax soo boosti garayso, laakiin active waxaad u noqon kartaa inaad faallooyin bixiso, cid u jawaabto ama cid aad la chat garayso oo aad fariin u dirto. Qodobkeena shanaad waa in social media-haagu ahaadaa mid isku mid ah. Maadaama oo aan nahay dhalinyar isticmaasha social media apps kala duwan sida Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp iyo qaar kale oo badan. Waxa muhiim ah mar kasta in qofku uu ku qoro social media magac isku mid ah. Tusaale ahaan, aniga dhammaan social media-hayga waxa ku qoran magacayga Sakariya Faysal Cagaf. Taasi waxay kalifaysaa in qof kasta oo dhinaca kale kala socda uu ogaan karo dhammaan akoonnadaadu inay yihiin isku mid, isla markaana ay fariintaadu noqon karto mid ah. Dhibta ugu weyn ee aynu diidayno ama qof kasta ay tahay inuu ka cararaa waa in uu ku isticmaalo magacyo kala duwan. Tusaale ahaan, inuu kan ku isticmaalo Maxamed halka kan kale ku isticmaalo Cabdi. Waa inay fariintaadu noqotaa hal mid, magacaaguna noqdo hal mid si lagaaga tixraaci karo haddii loo baahdo. Qodobkeena lixaad waa garo xilliga iyo goorta aad wax soo boosti garaynayso. Waqtigeena way kala duwan yahay, goobaheena way kala duwan yihiin. Adigoo subax jooga ayuu qofka kalena habeen joogi karaa. Si aad u garato markaasi fariinta aad soo diraysaa inay gaari karto ciddii loogu talagalay,
waa inaad samayso inaad soo boosti garayso oo itemka aad soo dhigto xilliga ugu habboon tusaale ahaan waa inaad soo dhigi karta xilliyada ay dadku ku badan yihiin asxaabtaaduna ay yihiin dad online ah keena toddobaad isla markaana ugu dambeeya waa inaad noqoto qof mar kasta jawaaba maadaama social media isticmaalo qofkuna uu maalin kasta soo dhigo fariilo maalinle ah sidoo kale uu ka samaystay saaxiibo badan ama si aad tahay ganacsade maalin kasta ku soo boosti gareeyo social mediahiisa borodhaga iyo waxyaabaha uu iibiyo waa inaad noqotaa qof mar kasta jawaabi kara fariimaha loo soo diray sidoo kale mararka qaarkood geli kala faalooyinka dadka wax soo weydiiyay taasi waxay kor u qaadaysaa xiriirka aad la leedahay dadka aad saaxiibada tihiin dadka aad qaraabada tihiin iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqaaga maalinlaha ah ama se ganacsigaaga ugu dambeyn maadaama aan ognahay casrigan in nolosheenu ay ku xidhantahay social media qodobadan aan soo taxay oo dhan iyo qodobo kale oo fara badan oo sii baari kartaan waxay kaa caawin karaan inaad social mediahaaga u isticmaali karto sida ugu saameynta badan isla markaana ugu qiimaha badan haddaba qof kasta oo fiidiyoga daawanaya waxaan kula dardaarmi lahaa in social media aad isticmaalaysa maadaama uu ka turjumayo noloshaada ka turjumayo ganacsigaaga ama ka turjumayo dhaqdhaqaaqaaga waa inaad sida ugu saameynta badan uguna fiican ee noloshaada iyo nolosha dadka kale wax taraysa aad u isticmaasho waad mahadsantihiin